Asalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Caaqil Tag. Maanta waxaan kuu sidaa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan. Waxaana ku samayn doonaa wax loo yaqaano form validation. Marka imaado form validation wuxuu ka dheelaa door muhiim ah web developmentiga ama projectska oo idilba. Haddaba muuqaalkeena waxaan kugu bari doonaa in aan dhisno formkan aad u jeedin kadibna aan validate gareyno. Waxaana isticmaali doonaa qaar ka mid ah technologieski ugu dambeeyay sida Next.js 13 iyo Tailwind CSS iyo qaar ka mid ah librarieska ugu caansan ee loo isticmaalo marka form validation kaasoo ay leedahay marka JavaScript. Haddaba muuqaalkeena waxaan u kala qaadi doonaa ilaa laba qayb. Qaybta koowaad oo tan ah waxaan ku dhisi doonaa designka oo leeyahay marka page-kan. Qaybta labaadna waxaan ku samayn doonaa validationka. Daawasho wanaagsan. Okay. Ugu horeyn waxaad soo furtaa marka command promptiga waxaad ku qortaa marka commandigan kaasoo ah marka commandiga lagu install gareeyo Next.js application. Okay, kadib waxaad sheegaysaa project name-kaaga. Wuxuu ku weydiinayaa marka su'aalooyin yar oo ku saabsan marka qaabka kugu install gareyn lahaa iyo waxyaabaha uu kugu soo dari lahaa. Sidoo kale inaad TypeScript rabtid oo kale, inaad Tailwind CSS aad isticmaali doontid oo kale, app directory oo kale inaad rabtid oo kale iyo waxyaabo la mid ayuu ku weydiinayaa. Kadib marka optionska adaa iska leh. Kadib markuu install gareeyo waxaan furaynaa hadeertaan marka applicationka waxaan ku furi doonaa VS Code. Okay, sidaan ayuu u eegayaa marka structure-kiisa oo idil. Waxaad furtaa marka folderkan src-ga waxaad ka tagtaa page. Waxaan fiirin doonaa marka code-kan aad aragtaan output-kiisa ayaan fiirin doonaa marka. Okay, waxaad tagtaa marka command promptigaaga. Halkaas ayaan ka run gareyn doonaa marka waxaad ku qortaa yarn dev. Waxaad taabataa marka linkigan ee ku qorantaa marka localhost 3000. Waad aragtaan marka code-ka inoo qornayo resultigiisa. Waxaad ku soo laabataa marka page. Waxaad iska tirtirtaa marka code-kan. Okay, intaanan wax qorin waxaan rabaa laba shay inaan ku soo daro marka. Sawir ayaan rabaa halkan inaan ku soo daro meeshan public tag marka. Okay. Waan ku soo daray marka. Waxaad sii tagtaa marka halkan CSS-ka ay ku qoran tahay. Waxaad iska tirtirtaa code-ka hore. Waxaan rabaa marka laba class inaan ku soo daro. Waxaad tiraahdaa marka at layer component dhe markaas class-ka koowaad waa marka. Okay, kaas waxaan rabaa inuu ii lahaado marka background oo linear gradient ah. Class-ka kalena waxaa loo yaqaanaa btn. Waxaan u sameynayaa marka background iyo text color. Intaas waa inta generalka ah u lahaw marka page-ka ama file-ka loo yaqaano page. Okay, hadda waxaan sameynaynaa inaan main-ka ku qorno marka h1. Waan fiirin doonaa marka output-ka inuu soo baxay iyo in kale. Waad aragtaan waa muuqda hadeertaan. h1-ka iska tir marka main-ka waxaa ku samaysaa marka class. Waxaan rabnaa marka inaan sameyno shaashada sidaan inaan ka dhigna ayaa rabnaa oo laba color inay kala lahaato. Marka waxaad tiraahdaa main-ka widthkiisu waa full waade. bg waxaad tiraahdaa marka white. Screen-ka marka dhirirka ugu yar ha ahaada marka screen-ka oo idil relative dheh. Waxaan sameynaynaa marka inaan kala qaybino waxaan u suuragelinayaa marka inaan isticmaalno before. Okay, before dheh absolute dheh marka. Before kala qor marka topka waa 0. Okay, before kala qor right-ka 0 ka dhig marka. Okay, before kala qor marka bottom-ka 0 ka dhig. Okay, waxaad siisaa marka background-ki class-ka aan soo sameysanayno oo linear gradient-ka ahay. Waxaad tiraahdaa marka z index-ka waa 0 waay. Waxaad tiraahdaa marka shaashada wuxuu ka haystaa 100%. Okay, waxaan sameynaynaa marka inaan iska xirno marka command promptiga. Waxaan isticmaali doonaa marka terminalka oo leeyahay marka VS Code-ka. Okay, waxaad sameysaa marka div samey. Waxaad dhexgelisaa marka div kale qoraal yar ku qor marka. Okay, waxaan sameynaynaa hadeertaa marka component src-ga tag marka folder loo yaqaano component. Waxaad dhexgelisaa marka component aan u bixiyay marka banner component. Markii aad file-ka sameysid waxaad qortaa rfc. Wuxuu ku dhisayaa marka functional component-ga. Si aad u isticmaashid marka rfc-ga ama kugu shaqeeyo waxaad u baahan tahay inaad soo degsatid extension-kan. Waxaadna ka heli kartaa VS Code extension-iska dhexdooda. Okay, dhifta waxaad ku qortaa marka qoraal yar ku qor si aan u fiirino inuu soo muuqanayo iyo in kale. Kadib waxaad sameysaa class name. Class name-ka waxaad tiraahdaa marka widthkiisu waa full. Z index-ka waxaad geysaa marka 10. Waxaan rabnaa kii hore maadaama 0 dhan inuu ka kor maro. Text wide dheh. Padding y waxaad tiraahdaa marka 20. X axis-kan waxaad tiraahdaa marka 32. Okay, waxaad soo laabataa marka page file. Waxaad soo import gareysaa marka component-ga aan hadda sameynay. Markaad soo import gareysid difta weyn marka waxaad u sameysaa class name. Waxaad dhexgelisaa marka flexi gaabkiisu waa 8.
okay difta gudaha ku jirta marka waxaad u samaysaa class name widthkiisa waxaad tiraahdaa marka full fiirin doonaa marka outputka waad aragtaan qaybta cagaarka waxaa ku jira marka componentiga aan sameynay qaybtan kalena waa difti kaligeed u tagneed waaye hadda waxaan aadaynaa marka componentiga ayaan dhisaynaa oo banner componentiga ahay dimaada marka halkan qoraalkan iska tir h2 samee marka waxaad ku qortaa marka book place class name u samee textigiis waa wuxuu gaarayaa marka size oo 2xl ah fontiga waa bold text right waaye oo right ka aado capitalize ka dhig marka oo xarafka ugu horeeya capital ha noqdo camal waaye waxaad samaysaa marka div samee waxaad dhexgelisaa marka h1 waxaad ku qortaa marka qoraalkan waxaad kaloo samaysaa marka paragraph tag asagana waxaad dhex dhigtaa marka qoraalkan aan u soo laabto marka difta waxaad u samaysaa marka class name margin top waxaad tiraahdaa 36 ka soo siko okay waxaad kaloo samaysaa marka h1 ka imaaw class name u samee textiga waxaad tiraahdaa marka size-kiisa ha ahaado marka 3xl fontiga waxaad tiraahdaa marka bold ha noqoto okay waxaad u soo degtaa marka paragraphka class name u samee asagana text colorkiisu waa gray 400 gaarayo text size-kiisu waa small okay margin topna waxaad tiraahdaa 6 ka siko hadda waxaan fiirin doonaa marka outputka koodkan waad aragtaan outputkiisa sidoo uu egyahay aan sii socona marka div samee hadeertaan marka waxaan rabaa inaan ku soo daro marka image-ka waxaad samaysaa waxaad soo import garaysaa marka image tagga iyo image file-ka okay image da marka src-ga waxaad dhexgelisaa marka file name-ka geli marka okay waxaad u samaysaa marka width iyo alt waxaan rabnaa marka inaan sameyno anada div kala dhexgeliyo marka diftaas waxaad u samaysaa marka tag oo h3 ah oo ku qoran marka qoraalkan waxaad u samaysaa marka class name text size-kiisa marka gaar marka lg fontigiis waa bold waxaad kaloo samaysaa div kale margin top ha ka sigata marka 6 okay waxaad samaysaa marka tag kale h1 ah h1ka intaadan sameynin waxaan sameynaynaa hadeertaan loo yaqaan dictionary okay dictionary-ga waxaan ugu baahnaa waxay tahay waxaan rabaa halkan inaan ku soo bandhigo horta dadka review-ga dadka sameeyeen marka waxay noqon karaan hal qof iyo waxay ka badan waxaan rabaa datadooda dhan inaan dictionary-ga ku xareeyo kadibna aan soo bandhigo hal aan u soo bandhigo okay waxaad tiraahdaa marka const review list dhe marka waxaan rabaa marka qof walba inaan ka qoro magaciisa iyo message-ka uu diray okay hadda xogtan ayaan haystaa ayaan ku buuxinayaa markaad samaysid waxaad imaadaa marka qaybta hoose waxaan iska tirtirayaa marka h1-kii iyo difta ka koreysaba waxaan sameynayaa marka div kale waxaan leeyahay margin top 8 ha ahaado marka waxaan rabaa listigii inaan hal hadda usoo muujiyo waxaad tiraahdaa marka review list dheh data map waxaad sheegtaa marka itemka iyo indexkiisa okay waxaad samaysaa marka div samee difta waxaan leenahay marka class name oo waxaad u samaysaa margin bottom 6 ah wuxuu kaloo u baahan yahay marka keyga inaan sheegno indexka geli marka okay waxaad samaysaa marka tag oo h4 ah waxaad ku qortaa marka item.name dheh waxaan rabnaa marka magacyada oo listiga ku jiro ama dictionary ku jiro inuu soo bandhigo waxaad u samaysaa marka class name text size-kiisa wuxuu yahay marka base okay waxaad samaysaa marka paragraph tag asagana waxaan rabnaa inaan ku soo bandhigno marka message-ka waxaad tiraahdaa marka item.description dheh waxaad u samaysaa marka class name margin top-kiisa waa 4 ha ka sigto kan kale okay textigiisa color-ka ha ahaado marka gray okay intaas markaan sameyno waxaan fiirin doonaa marka outputka waxa aan sameynay refresh dheh marka okay waad aragtaan hadeertaan sidoo u muuqdo halkaani marka waxaan ku dhameynay sectionkii bannerka ahaa hadda waxaan u gudbaynaa marka qaybta formka inaan design gareyno asagana okay waxaad taabataa marka folderka loo yaqaan components waxaad samaysaa file oo aan ugu magac diray marka sign up component markaad file-ka samaysid waxaad diyaarsataa marka functional component-ga sida shortcut-ka isticmaal marka rfc difta ku dhex jirta marka waxaad u samaysaa class width-keeda waxaad tiraahdaa marka full y padding y axis-ka waa 20 padding x axis-ka 32 y z index-kiisa waxaad geysaa 10 waxaad u samaysaa div difta waxaad dhexgelisaa marka class name width-ka waxaad tiraahdaa 75% ka qaado mx-na waxaad tiraahdaa auto ka noqo centerka okay waxaad samaysaa marka paragraph kaasuu ku qoran yahay marka qoraalkan waxaad soo import garaysataa marka link tag markaad soo import garaysid marka linkiga waxaad soo dhexgelisaa paragraph-ka dhexdiisa waxaad u samaysaa marka class name textkiisu waa black dhe marka
waxaad ku qortaa marka log in here kadib waxaad u laabataa marka filekii loo yaqaan page waxaad soo import gareysaa marka componentigan oo aad hadda samaysay kadib waxaad ku soo dartaa marka meesha difta aad isticmaalaysa diftaas iska tir halkaas marka ku bedelo marka componentigan okay waxaan soo fiirinaynaa marka resultiga okay waad aragtaan hadeertaan wax yar ayaan rabaa marka inaan ka bedelo soo laabo marka class name-ka waxaad u dartaa marka fontiga inay bold tahay waxaad samaysaa marka div waxaad u samaysaa class name margin topkiisu waa 20 difta waxaad dhex gelisaa marka h1 waxaad ku qortaa marka qoraalkan waxaad u samaysaa marka class name capitalize garig text size-kiisu waa 3xl fontigana waa bold okay waxaad samaysaa oo kale paragraph waxaad ku qortaa marka qoraalkan isagana waxaad u samaysaa class name textigiisu waxaad tiraahdaa waa gray oo 400 gaaraya margin topkiisuna waa 6 waxaad samaysaa marka bottom kaasoo ku qoranta marka get started with Google waxaad soo import gareysataa marka image tag iyo image fileki kadib bottomka waxaad u samaysaa class name border of 2 waa flexi y itemkiisu waa center gap oo wuxuu leeyahay marka 4 gaarayo justifying center y roundedkiisu gaara marka xl padding y waa 3.5 textkiisuna center ha ahaado padding x axis waa 20 widthkiisu waxaad tiraahdaa marka waa full margin top waxaad tiraahdaa 10 fontigiisuna ha ahaado marka mid bold ah kadib markaad intaas samaysid waxaad u gudubtaa qaybta hoose okay waxaad samaysaa marka div kaasoo ku jira marka 2hr okay 2hr waxa u dhaxaysiisaa marka or 2hr marka waxaad u samaysaa class name kadib waxaad tiraahdaa flex waa 1 okay divta tag marka ka koreyso iyadana class name u samee waxaad tiraahdaa marka waa flex item center y gaabkiisana waa 8 okay waxaan fiirinaynaa marka hadda resultiga waxaad samaysaa marka form waxaad u yeeshaa marka class name margin topka gaaraya marka 8 waxaad samaysaa marka div waxaad u samaysaa class name flexi marka flexi column gap oo gaaraya marka 2 margin bottomkiisuna waa 4 waxaad samaysaa label tag waxaad ku qortaa full name waxaad u samaysaa marka class name fontigiisuna waa bold okay waxaad samaysaa input text waxaad u samaysaa class name backgroundkiisa marka gray ka dhig oo 100 gaaraya okay border u samee rounded lg padding y waa 3.5 padding x axis-kana waa 4 markii focuska la saarna outline-ka none ka dhig okay waxaad ku dartaa placeholder oo magaca okay hadda waxaan ku sameynaa marka input textiga ugu horeeyay oo qofka magaciisa soo gelin lahay kan ayaan waxaan sameynayaa marka laba mar ayaan duplicate gareynayaa kadib waxaan ku bedelayaa emailkii iyo passwordkii qaybta emailka waxaad ka bedeshaa marka magaca labelka iyo waxaad bedeshaa input type emailka dhig placeholderkana bedel okay qaybta passwordka usoo gudub marka waxaad ka bedeshaa asagana halkan password ka dhig typekan waxaad ka dhigtaa password placeholderkana waxaad gelisaa dhibcooyin okay sidaas marka inputska aan u baahnaay ayaan ku sameeyay haddii aan fiirino sidaan ayuu u muuqdaa aan u gudbaynaa marka inaan sameyno bottomki okay waxaad samaysaa bottom typekiisu waa submit waxaad u samaysaa marka class name wuxuu leeyahay marka border 2 ah isticmaal marka classki haday aan sameyneynin oo btn la dhahay rounded xl padding y wuxuu yahay marka 3.5 textgiisna waa center okay padding x waa 20 widthku waa full margin top waa xogaaraya marka 6 waxaad tiraahdaa marka fontigana waa bold bottomka waxaad ku qortaa marka create account okay waxaan fiirinaynaa marka hadirtaan sida u muuqdo